barnaamijka wixii cusub ee Gaacar Media Tube ee aan kaga hadalno falanqaynta arrimaha siyaasadda, tiknoolajiyadda, difaaca, sayniska iyo qodobo kale. Inta aanan u gudagalin barnaamijka wixii cusub ee Gaacar Media Tube, waxaan idinka codsanaynaa dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan in aad subscribe, like, follow iyo share dhahdaan page-ka iyo channel-ka Gaacar Media Tube ee aan ku kala leenahay Facebook iyo YouTube-ka. Haddaba ku soo dhawaada barnaamijka wixii cusub ee Gaacar Media Tube, kaasoo kaga hadlin doono xogta ururka gaashaanbuurta NATO ee la jabsaday waxa ka jira. Ku soo dhawaada kooxaha wax jabsada oo u dhacay xogta gaashaanbuurta NATO. Warbixin BBC-da ay daawacday ayaa lagu sheegay kooxaha wax jabsada gaar ahaan kuwa xogta internetka jabsada ayaa qaab online oo beec ah soo bandhigay xog sireed ay leedahay ururka gaashaanbuurta NATO. Haddaba sirta NATO ee la jabsaday ee qaabka online-ka beec ahaan lagu soo bandhigay waxaa ka mid ah wax soo saarka xarunta hubka ee Pan European Central Production oo wax soo saarkeedu ka mid yahay nidaamka gantaalada ee loo yaqaan MABDA ama MBDA, iyo faahfaahinada nidaamkan ayaa ka mid ah xogaha sirta NATO ee la jabsaday kadibna beec ahaan qaab online ah lagu soo bandhigay. Afhayeenka NATO oo ka hadlay arrinta la xiriirta xogta la jabsaday ee NATO ayaa yidhi waxaaba yaraatee tilmaamaya in la jabsaday xayndaabka xogaha NATO ma jirto. Ha ahaatee, nidaamka soo saarista gantaalada ee MABDA, shirkad qayb ka ah ee Talyaaniga laga leeyahay, ayaa loo maleynayaa inay hordhac u noqon karto kooxda xogta NATO jabsaday. Sida warbixintu BBC-du sheegtay, kooxdan xogaha jabsaday ee aan heybtooda la garanayn si ay u soo celiyaan xogtii NATO ee ay jabsadeen, waxay madax furasho ahaan u dalbadeen 15 Bitcoin oo u dhiganta $320,000. Waxaa la sheegayaa qiimaha iyo faahfaahinada kale inay u egyihiin xogta bilihii hore ay soo saartay dagaalka ama website-ka xogta tiknoolajiyadda iyo amniga ee dalka Faransiiska. Dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan, waad ku mahadsantihiin daawashadiina iyo dhageysigiina. Dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan, waxaa intaa inaga eg barnaamijka wixii cusub ee Gaacar Media Tube. Barnaamijka kan xiga intaan ku kulmi doono nabadiino.